bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyey ciidanka raadiyuu weerar ku qaaday guri ku yaala xaafadda jungal waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale weerarkaasi cidda lala beegsaday maxaa ka jira in lacagtii ugu badnayd la duldhigay madaxa oo fureen waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha iyo tillaabada uu qaadayo arrintaasi la xiriirta iyo 22 sarkaal oo saacadihii ugu dambeeyey xabsiga loo dhaadhiciyey dagaalka Itoobiya iyo Eritrea oo laga cabsi qabo inuu Soomaaliya oo xididada u siibay amnaankeeda waxaan idiin soo gudbin doonaa afarta garab ee cadaawaddu ay ka dhaxaysay ee markaan wada saftay isla markaana halka cadow yeeshay Eritrea militarigeeda iyo sidoo kale militariga Itoobiya TPLF iyo koox kale oo ayana amxaradu ay leedahay faano markaan saf dheer ayay ku jiraan waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ay u safan yihiin iyo sida ay isku garab siinayaan cadaadiska siyaasafaweekii ciidanka uu ku argoosanayo ee ku sugan gudaha wadankiisa qaybta hoos aragtidaada noogu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka oo bejka falowgaree aan ku bilowna wararka dhambaalka wararka ciidamada RRU ayaa warar ku qaaday guri ku yaala xaafadda jungal ee magaalada Hargeysa halkaas oo la aaminsan yahay in amar degdega lagu bixiyay in gudaha lagu galo ciidanka sida gaarka u tababaran ee Somaliland ee RRU ayaa la xaqiijiyay in gurigan ku yaala xaafadda jungal gaar ahaan aaga guriga uu degan yahay Suldaan Axmed Cusmaan Cadegude ayaa waxa warar ku qaaday ciidamada militariga sidii u tababaran ee RRU ee sida gaarka u tababaran kuwaas oo guriga iyo goobihii ka agdhawaa isku hareereeyay isla markaana waxa la arkayay iyaga oo waliba halka laga maqlayo shirqanta xabado ay ridayaan ciidamadaasi sida xogta lagu helay ciidanka ayaa waxa ay si degdeg gudaha ugu galeen guriga ku yaala halka iyagoo waliba guri u baarayay dadkuna waxay qaadeen argagax iyo sas ku aadan xaaladda la soo kulantay ciidankan afku u wada duuban yahay isla markaana wata gaadiidka qafilan ee gudaha u galay xaafadda jungal waxaana dadku ay ka walwalsanayeen suurtagalnimada in ay halkaasi ka dhacaan tillaabooyin argoosi maadaama qaar badan oo ka mid ah beelaha dega xaafaddaasi ay ka mid yihiin jimadaha kacdoonka wada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan Somaliland guriga Cadegude iyo aagiisa guryaha ku yaala ayay si gaar ah u baareen ciidanku waxaana la xaqiijiyay in halka ay ka baadigoobeen nin ay ku tuhmeen inuu xiriir la leeyahay jamhadda Garxaajiis ee buurta gacan libaax iyagoo waliba halkaasi sida xogtaana ku helayna ka kaxaystay tiradada oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiiyaan suurtagalnimada in ninkaasi xogtiisa la helo laba sheegin nooca uu yahay iyo sidoo kale darajada uu ka hayo xogagan kacdoonka ka wada buurta gacan libaax balse waxaa la aaminsan yahay inuu ka soo jeedo beeshan degta xaafadda jungal iyo sidoo kale degmada gacan libaax intaba ee magaalada Hargeysa warar kala duwan ayaana ka soo baxaya dadka la kaxaystay oo qaarkood ay yihiin dumar waxaana loo kaxeeyay xabsiga dhexe halkaas oo ay doonayaan in ciidamadu ay baaris ku marsiyaan xogaha soo baxaya ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in guriga Cadegude uu ahaa goob si gaar ah looga maqlayay rasaasta ay ridayaan ciidanku waxaana la aaminsan yahay in halkaasi ay ku sugan yihiin xubno kala duwan oo ka tirsan jamhadda Garxaajiis kuwaas oo qaabab kala duwan ku jooga magaalada qaarkood waxay la socdaan dhaqdhaqaaqyada halka kuwa kale dhaqaale aruurinta ay u qaabilsan yihiin jamhadda waxayna doonayaan in ay ugu dambeyntii sahan iyo sidoo kale safarba ay ku sameeyaan sida xaaladdu ay tahay waana ciidan si gaar ah u abaabulan isla markaana la doonayo inay la socdaan dhaqdhaqaaqa RRU sirdoonkeeda kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku milnaa dadka deegaanka RRU waxay ku guuldareysatay in ay wax ka ogaato buurta gacan libaax iyo sida loo fadhiyo kadib markii in Axmed Tiiru diray ciidan sirdoon ah ay dhexda ka qabteen dadka deegaanka isla markaana la aqoonsaday inay yihiin sirdoonka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhinaca kale xogaha aanu ka helayno magaalada Hargeysa ayaa tilmaamaya in lacag ka badan 100,000 ilaa 200,000 oo doolarka Mareykanka ah in la duldhigay madaxa oo fureen oo ah hogaaminaya jamhadda gacan libaax ee Garxaajiis ee ku sugan aaga buurahaasi waxa uu fureen noqday ninka ugu hadalhaynta badan isla markaana Muuse uu ugu neceb yahay dhammaan cid walba oo ka soo horjeeda marka laga soo tago Garaad Jaamac Garaad Cali waxa uu yahay shakhsiga maanta ugu cadaawadda iyo nacaybka badan
isla markaana marunu jeclaan lahaa in gacanta lagu soo dhigo ama la qarajiyo. Wafureen oo ah sarkaal muddo dheer ka soo shaqaynayay deegaanada Somalilan ayaa ah nin aad u mayal adag, waxa uuna ka soo dagaalamay jamhadihii kala duwanaa ee deegaanada Somalilan, isagoo si gaar ah u dagaalgalay sanadkii 1988 xilligaas oo Somalilan jamhadii gobolada waqooyi ee Sanaag ay la dagaalamaysay dowladdii militariga ahayd ee Jaale Maxamed Siyaad Barre. Sida xogta lagu helayana waxa uu markaana hoggaanka u hayaa jamhad awood badan, taasoo rajo ka qabta inay muquuniso Muuse iyo jiilkiisa xilligan madaxtooyada ku xayndaaban. Lacagtana waxaa la siin doonaa qof walba oo soo sheega halka uu ku sugan yahay si gaar ah si madaafiicda loogu hogaamiyo, ama shakhsiga isagoo ku gacan yaraysta oo khaarijiya. oo fureen oo ah sarkaalka ugu adag markaan garxajista hubaysan. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xabsiga loo taxaabay 22 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ka soo jeeda garxajis, kuwaas oo ka mid yahay madaxii isgaarsiinta ee ciidanka badda ee Somalilan, waxaana saraakiishaas qaarkood ay ka shaqaynayeen xabsiyada iyo sidoo kale saldhigyada kala duwan ee ku yaala qaybaha ciidanka. waxaana ka mid ah saraakiisha la aaminsan yahay in lagu daba jiro taliya ku-xigeenkii magaalada Berbera ee booliiska. Dhinaca kale aanu eegna ciidamada dalalka Eritrea iyo Itoobiya ayaa markaana waxaa ka dhex qaraxday cadaawad militari oo toosa, iyadoo weliba labada dowladood laga cabsi qabo in ay si toosa gacanta iskula tagaan labadooda ciidan. Itoobiya iyo Eritrea ayaa si dadban waxay uga dagaalamayaan qaybo ka mid ah gobolada waddanka Itoobiya. Xog la helay ayaa muujinaysa in ciidanka militariga dowladda Eritrea ay si toos ugu dhex milmeen ciidanka jamhadda Amxaarada ee ka dagaalamaysa qaybo ka tirsan gobolka Amxaaradu ay degto ee dalka Itoobiya, halka dhinaca kale ay jamhadda TPLF ay gacan siinayso xukuumadda Dr. Abiy Ahmed, iyadoo kasoo horjeeda gabadfalladii ciidanka Eritrea ay geysteen intii dagaalada sokeeye ay ka socdeen dalka Itoobiya. Eritrea ayaa ciidankeedu waxa ay xilligaasi garabsanayeen ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka lagu tababaray dalka Eritrea, kuwaasoo la aaminsan yahay in ay Aksum iyo aageeda ay ka geysteen xasuuq daran. Waxay jamhadda TPLF ay aaminsan tahay in gacanta xanuunka badnayd ee sida gaarka u xanuujisay Eritrea ciidankeeda TPLF ay tahay ciidamada dowladda Eritrea ay tababartay ee Soomaaliya, kuwaasoo laayay baadariyiintii iyo sidoo kale howlwadeennadii kiniisadaha qaarkood, iyagoo u beegsanaya sababo la xiriira in TPLF ay magaalada Muqdisho sannado ka hor ay tiradada ku xasuuqday, waxayna xilligaasi ka fuliyeen labada ciidan ee isgarabsanayay sida TPLF ay aaminsan tahay howlgal aargoosi isirsifayn ah oo islamarkaana si gaar u xanuujiyey ciidamada Eritrea iyo guud ahaan jamhadahooda, kuna qasbay inay lumiyaan meelo badan. Dadku way iskaga carareen guud ahaan aaggaasi, iyagoo weliba la kulmayay tacadiyo madax ka toogasho, kufsi iyo sidoo kale dhibaatooyin kale iskugu jiray, waana ay xaalufiyeen ciidanka Eritrea, halka militariga dowladda Itoobiyana ay qabsanayeen oo kaliya dadka deegaanka, islamarkaana tacadiyadoodu ay ahaayeen kuwo ka hooseeya heerka ciidankaasi Eritrea ay geysanayeen. Taasi waxay sababtay in Eritrea markaan ay si toos u wajahdo kacdoonka Eritreanka, waa kacdoonka Tigreega halkaasi ku sugan, iyo sidoo kale militariga dowladda federaalka Itoobiya oo u diyaar garoobay inay gacan adag ula tagaan xukuumadda Asmara. Dowladda Itoobiya ayaa dhowaan ku hanjabtay inay heli doonto deked caalami ah oo ay ka howlgalaan ciidamadeeda badda iyo sidoo kale dadkuna ay ka helaan ilaha dhaqaale iyo waxdhoofinta. Xilligaas waxaa la ogaaday in Itoobiya hanjabaadeedu ayna ku soconin Soomaaliya oo leh dekado baylaha. Mar haddii Itoobiya aynan jirin cid dekadaha Soomaaliya ka celisa ama ka xigta, waxa ay u hanjabaysana waxaa la ogaaday inay tahay xukuumadda Asmara oo markaan dagaal isku diyaarinaysa iyadu. Amxaarada ayaa si toosa u helaysa saanada dagaalka iyo rasaasta iyo qoryaha kala duwan, isla markaana kaga imaanaysa dalka Eritrea. Eritrea ayaa dhinaca kale waxay dib u dhigatay dhammaan ciidankii ay tababartay qaybo badan oo ka mid ah ee Soomaaliya, iyadoo Soomaaliya kaga argoosanaysa in ay xiriir dhow ay la yeelatay xukuumadda Addis Ababa oo aynan tixgelinin saaxiibtinimada labada dowladood u bilaabatay. Waxaase la aaminsan yahay in Eritrea ayna markaan fursad weyn u heli doonin inay taageerto kooxaha ka dagaalama Soomaaliya, iyadoo weliba se la aaminsan yahay in ay bixinayso taageero caalami ah oo hubka iyo saanada iskugu jirta.
si walbaba ha ahaatee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Eritrea weli xiriirkoodu waa u taagan yahay uma burburin, balse waxaa la aaminsan yahay in Siyaas Afwerki uu mar uun Soomaaliya ku riixi doono laba midkood, inay asaga la safato iyo inay iskaga tagto oo ay cadow adag wajahdo. dhinaca kale, magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa waxaa ka soconaya dadaalo looga soo horjeedo. gudahaan daawada intaa waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaan dhamaalka wararka. Haddii daawada nagu cusub tahay follow garab page-ka si mar walba wararkan ay kuu soo gaaraan. Nabadgelyo.